السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu halkan ka sii wadi doonaa qaybtii labaad ee videogii hore. waxaana noqon doontaa qaybta ugu dambaysa. haddii muuqaalka hore aad soo daawan, qaybtii hore waxay ku saabsanayd 5 book oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu bilaabo mashruuc ama uu doonayaba inuu maskaxdiisa kordhiyo. muuqaalka hore waxaan ku soo qaadanay 5 book, kana wuxuu noqon doonaa sidoo kale 5 book. haddaba inteenan muuqaalka u guda gelin, haddii aad tahay qof jecel inuu noloshiisa horumariyo, dhiirigelin yar oo yara baahan, adaa lagugu talagalay kanaalkan. haddii aad ka mid tahay asxaabteennii hore noola socotayna, waxaan idin leeyahay soo noqosho wanaagsan. waxaana rajaynayaa in 5 boog aan soo qaadan doono ay anfici doonaan. buugaagtan keliya ma khuseeyaan dadka doonaya ama ku fikiraya inay bilaabaan mashruuc. waxaa kale lagu talagalay run ahaantii qof kasta oo doonaya inuu maskaxdiisa kobciyo, noloshiisana wax ka bedelo. dab waxba yaanan hal idinku dheerayna, waanu iska bilaabanno. buugga koowaad ee aan soo qaadanno waxaa la dhahaa 0 to 1. buuggan waxa uu khuseeyaa qof kasta oo doonaya inuu bilaabo wax cusub. almicna waxaan ula jeedaa qof kasta oo doonaya inuu la yimaado fikrad cusub. iminka tusaale ahaan oo kale waddankeena haddaan eegno, sida caalamkan uma horumarin, sidaas darteed waxaa yaalla waxyaabo badan oo run ahaantii halkan caalamka ka jira laakiin waddankeennii ka cusub. haddii tusaale oo kale aad maskaxda ku haysid wax cusub inaad waddankii geysid ama meeshan aad joogtid baad ka bilowdid, buuggan wuxuu kaa caawinayaa habkii aad u mari lahayd iyo sidaa wax u qaban lahaydba. markaan ku leeyahay geysid, walama jeedo oo khasab maaha inaad tahay qof qurbaha jooga. adigu waddankii joogaba waxaad samayn kartaa oo aad la iman kartaa fikrad cusub oo adigu halkaa jooga aad ka samayn kartid. markaa run ahaantii wax micno weyn aad samaynaysaa ma jirto halkaad ka joogtid adduunka. buuggan labaad ayaa ah Lean Startup. marka aad tahay ama aad doonaysid inaad mashruuc furatid, waxa ugu muhiimsan ama saamaynta ugu weyn ku leh inuu mashruucaas horumaro ama aanu horumarin oo uu khasaaro waa macaamiisha. marka buuggan wuxuu ku tusinayaa ama uu ku barayaa habdhaqanka iyo sida aad mar kasta macaamiisha uga dhigaysid muhiimaddaada koobaad. oo macaamiil la'aan wax mashruuca soconaya ma jirto. marka buuggan waxaad ku baranaysaa hababka aad ula dhaqmi kartid, ulana dhaqmi doontid macaamiisha, oo aad mar kastana isku dayi doontid inaad fulisid waxa iyagu doonayaan. sababtoo ah macaamiil faraxsan waxay keenaysaa in mashruucaaga uu socdo sidii aad doonaysay iyo si ka fiican u noqdo. buuggan saddexaad ayaa ah The 4-Hour Workweek. buuggan wuxuu khuseeyaa qof kasta oo doonaya ama riyadiisu ay tahay in uu bilaabo wax isaga u gaar ah, oo aanna doonin in mustaqbalkiisa ku dhammaysto u shaqaynayo qof kale, weliba uu ka shaqayno shaqo aanu ku faraxsanayn, nolosha badankiisana uu ku dhammaysan doono. marka qoraalkan wuxuu ku tusinayaa habab aad u noqon kartid qof wax ku ool ah, oo halkii aad wakhtigaaga ku dhammaysanay intiisa badnayd u shaqaynaad qof kale u shaqaynaysid, aad adigu bilaaban kartid wax adiga ku gaar ah, adigoo aan u baahnayn inaad shaqaysid 12 saacadood maalin kasta. waxa uu ku tusin doonaa habab ama xeelal aad samayn kartid si aad arrintaa uga rumaysid. buuggan afraad ayaa ah The Entrepreneur Mind. buuggan run ahaantii maskaxdaada uu bedeli doonaa. haddii iminka aad tahay qof doonaya ama ku fikiraya inuu bilaabo mashruuc, oo laakiinse aan haba yaraatee waxba ka aqoon, halka wax ka bilaabi lahaan aan garanayn, buuggan aduu ku anfacaya. buuggan wuxuu ku barayaa weliba si step by step ah halkii aad wax ka bilaabi lahayd, istaraatiijiyadda isticmaali lahayd, sidii aad kula dhaqmi lahayd. xagga ekonomiga marka laga eego iyadana sidoo kale aad buu waxbaan kaaga caawinayaa. adigu wax kasta oo run ahaantii loo baahan yahay si loo sameeyo business horumaray, buuggan waad ka heli doontaa, waanu ku tusinayaa si step by step ah. buuggan shanaad ahna kan ugu dambeeya ayaa ah The Hard Thing About Hard Things. buuggan gebi ahaantiisa wuxuu ku salaysan yahay sida loo noqdo maamulo fiican. haddii aad business leedahay oo laakiin aadan lahayn astaamihii loogu talagalay ama aadan aqoon astaamihii loogu talagalay sida loo noqdo maamulo fiican, way adkaanaysaa in mashruucaasi uu hirgalo ama uu guulaysto. marka buuggan waxaad ku bari doontaa sida aad noqon kartid maamulo ay jecel yihiin dadka asxaabtiisa ee u shaqeeya iyo macaamiishiisuba. qoraalku wuxuu leeyahay waxaa jirta 2 nooc oo ka mid ah maamulayaasha. midi waxa uu qaabilsan yahay oo keliya inuu keeno fikirro cusub oo uu markasta ka fikiro shirkadda sidii wax cusub ugu soo kordhin lahaa. maamulahaasi shirkadda dhexdeeda ama shirkadda gudaheeda kuma dhex jiro oo dad baa u qaabilsan oo xagga u dhiibay. isaga wuxuu qaabilsan yahay waxa weeye fikirkaas iyo sidii uu mustaqbalka soo socda uga dhigi lahaa shirkaddaas mid meel gaadha. kaas waa sida Bill Gates oo kale. maamulaha labada ayaa ah mid isagu jooga oona yimaada shaqada maalin kasta, laakiin maamulahan wuxuu maamulihii hore kaga duwan yahay. isagoo waxa uu la joogaa shaqaalihii, waxaana uu jecel yahay in uu la socdo shaqadu sida ay markasta u dhacayaan, shaqaalahana uu ka warhayo oo uu la socdo sida ay wax u qabanayaan, shaqaduna ay sidii u socoto. marka qoraalku wuxuu ku leeyahay haddii aad doonaysid inaad noqoto maamulo fiican
oo doonaya inuu mashruuciisa horumariyo waa inaad labadaba labada quality-ba waa inaad leedahay waa inaad tahay maamulo ka fikiraya shirkadda iyo sidii aad noqon lahayd 15 sano soo socda oo fikir dheer leh haddana sidoo kale waa inaad tahay maamulo shirkadda ku guda jira oo ka warhaya sidee wax u socdaan intaas ayuu muuqaalku naga dhan yahay waana inoo iyo isbuuca dambe insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.